dowladda Ruushka ayaa sheegtay inuu ciidamadiisa kala baxayo duleedka magaalada Kiev waxayna sheegtay xukuumadda Moscow in la akiyay howlgalkii bariga ka bixitaanka ciidamada Ruushka duleedka magaalada caasimadda ee Kiev ayaa ku soo aadeysa kadib markii uu ka bilowday magaalada Istanbul wadahadalo u dhaxeeya wafuudka kala socotay Ruushka iyo Ukraine ayadoo la sheegay in wadahadalada laga sameeyay horumar waxaana la isla qaatay in Ukraine aysan ku biiri karin NATO balse dowladda Ruushka ayaa aqbali doonta in Ukraine ay ku biiri karto midowga Yurub. dowladda Ruushka ayaa dowlado dhowr ah sida Canada, maamulka Israa'iil iyo Turkiga sheegay in ay damaanad qaadi doonaan heshiiska iyadoo marka uu dambeysana ay si wadajir u saxiixi doonaan madaxda Ukraine iyo Ruushka. Ukraine ayaa xornimada qaadatay sanadkii 1991 kadib burburkii ku yimid midowgii Sovieti waxayna si tartiib ugu sii dhawaaneysay ka mid noqoshada midowga Yurub iyo gaashaanbuurta NATO. hadday dhacdo in Ukraine ay ka tanaasusho ka mid noqoshada NATO waxay faa'iido weyn ugu jirtaa Ruushka iyadoo xukuumadda Moscow ay markaasi noqonayso mid ku guuleysatay duulaankii ay ku qaaday Ukraine. dowladda Ruushka ayaa ku andacoonayso in Ruushka iyo Ukraine ay yihiin hal wadan isagoo difaray madaxweynaha wadanka Putin taariikhda dheer ee uu leeyahay wadanka Ukraine. tan iyo markii uu bilowday dagaalka Ruushka ku qaaday Ukraine waxay ciidamada Ruushka qabsadeen magaalooyin muhiim u ah xukuumadda Kiev balse waxay ku guuldareysteen inay jibaan difaaca adka ee ciidamada Ukraine kuwaasoo galay difaac aysan xukuumadda Moscow ku guuldareysatay inay kula wareegto magaalada caasimadda ee Kiev.